hambalyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan uga hambalyaynayaa 26 Juun oo ku aastaysan maalintii Soomaaliya gobolada waqooyi ay xorriyadda kala wareegeen gumeystihii Talyaaniga xilligaas waxaan uga hambalyaynayaa marka ummadda Soomaaliyeed in Soomaaliya 1960kii waqtigii gumeysiga iska qaadeen 26 Juun walaalaha gobolada waqooyi inay garowsadeen in cadawga la iska dulqaadi karo gumeysiga aan la aqbali karin waxaan uga hambalyaynayaa marka ummadda Soomaaliyeed xorriyadda maanta aan haysano inay jirtay rag u soo dhabar adeegay oo dhalinyaro ahaa oo dumar ahaa oo aabayaal ahaa oo waxgarad ahaa oo sababay maanta in Soomaaliya nabadan iyo dawladnimada iyo baraarada ay ku faanayso iyo taariikhdan weyn ee 26 Juun ee 1960kii maanta inay jireen dhalinyaro soo gaarsiiyeen anigoo ku hadlaya magaca golaha iskaashiga dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaya uguna hambalyaynayaa maalintan weyn inay tahay maalin aad u muhiim ah maalintan weyn inay tahay maalin mudan in maxaa la yiraahdaa waqti kasta ay saan loo weynayo looguna dabaaldego waxaan madaxda qaranka Soomaaliyeed ayaga ugu baaqaya in maalmaha xorriyadda kooda Luulyo ilaa 26 Juun inay maalintaas ama maalmahaas bay ka dhigaan toddobaad Soomaaliya agtooda qaali ku ah toddobaad Soomaaliya meel kasta oo ay Soomaalidu joogto ay isugu soo baxaan u dabaaldegaan inta kadib waxaan leeyahay 26 Juun waa maalintii abwaanti macad uu yiri kan nasaar kan nasiib oo ay suraan calankii Soomaaliyeed marka xidigta cadaanka dhexda ku lahaa ee kalarka bluega lahaa marka hambalyo ummad Soomaaliyeed waxaan uga hambalyeynaa maalintan taariikhiga ah oo aan leeyahay hal adkeeyo maalintan maalmahan oo kale intan ha noqdaan maalmo aad looga dabaaldego xorriyadda aan haysana maanta aan uga faa'iideysano inaan ku xasilino dalkeena